Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada jiraalka maanta. Afeef hore si aynu u fahanno qormadan waa in yar oo ka mid ah duulaankii Kiristanku ay ku hayeen ama ay ku doonayeen in ay dhulka muslimiinta kula wareegaan kabcadana ku qabsadaan qardanka islaamka iyo gaalada. Qormadani aad bay u dheeraan doontaa ujeedka rasmiga ah iyo halka aynu doonayna in aan abaarana qaybta u dambaysa ayaan ku ogaan doonaa haddii Rabbi idmo. Waqtigii suubanuhu noolaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee taariikhda hijrigu markay ahayd sanadkii 7 Tigreega iyo Axmaarada oo iswata waxa ay duulaan ku soo qaadeen kuna qabsadeen magaalada Riyaad iyaga oo ku socday magaalada Maka doonayeen in ay qabsadaan kabcada doonayeen in ay dumiyaan oo ay rumeeyaan fashilkii ku dhacay awowgood Abraham riyooyinkiisa iyo qabyadiisa uu ka tagayna in ay iyagu hirgeliyaan. Arrinkaasi waxa uu kalifay markuu maqlay nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee in uu diray asxaabigii la oran jiray Umar al-Madlaji oo ku guuleystay in uu celiyo nimanka duulaanka ahaa. Mar labaad taariikhdu markay ahayd 20kii hijriga 13 sanadood kadib duulaankii hore khilaafadii Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayay haddana nimankii Tigreega iyo Axmaaradu duulaankii soo celiyeen mar labaad iyaga oo yimiday magaalada Jidda doonayana in ay kabcada qabsadaan. Markaana isla asxaabigii nabiga u diray naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayuu Umarna u diray Umar al-Madlaji isaga oo wata 300 oo ciidan ah, laakiin markan laguma guuleysan oo rag badan ayaa laga soo laayay saxaabadii. Hadal caan ahaa buu waqtiga Umar bin Khattab yiri oo suuragal ma aha buu inaan qof dambe oo islaama dagaal bad ugu diro. Nimankii sidaa kuma istaagine ahdigii reer Bani Umayya 83kii hijriga oo ku beegan 702 miilaadiga ayay haddana isla Jidda lafteedii yimaadeen iyaga oo doonaya in ay kabcada qabsadaan. Waqtigaasi waxa uu ahaa waqtigii islaamku aadka u xoog badnaa, idinkuna waad soo baari kartaan sooyaalka. Nimanka Axmaarada iyo Tigreega ee isku lifaaqan laba gooraba way dhacdaa in ay islaamka soo weeraraan marka islaamku aad u xoogan yahay, aadna u fidaayo, iyo marka uu aad u liito ama taag daran yahay. Mar saddexaadse oo ah markuu islaamku dhexdhexaadka yahay ma soo weeraraan, sooyaalkana laguma hayo, sababtana dib baan ka falanqayn doonaa. Arrinka muslimiintu waxay kaga jawaabeen xilliga in ay weerar ku qaadaan Axmaarada iyo Tigreegii wada socday oo laga qabsado jasiiradda Musawac iyo jasiirado kale oo badda cas ku yaala oo ay saldhigyo ku lahaayeen Axmaarada iyo Tigreegu duulaankana ka soo qaadi jireen. Alxaasil nimanka Axmaarada iyo Tigreegu 854kii Rabiicu Thaani markay ahayd taariikhda hijrigu oo ku beegan 1450kii January ayay haddana mar kale duulaan soo qaadeen. Axmaarada iyo Tigreega markan waxaa hogaaminayay Dur Yacquub boqorkii la oran jiray. Boqorka Axmaarada iyo Tigreega hogaaminayay waqtiga waxa uu diyaariyay 200 oo doomood. Goortaasi waxay ahayd markii muslimiintu aadka ugu dhibaataysnaayeen meeshii la oran jiray Andalus oo ku dhibaateynayay ee ku gumaadayay ninkii la oran jiray Albondul Khamis boqorkii Argona. muslimiintuna aadka ugu liiteen burburkii boqortooyadii Andalus. ninka Dur Yacquub la oranayay ee xabashiga ahaa, ninka Isbaanishka ahaa ee muslimiinta boqortooyadii Andalus ku dhibayay burburkeegii waqtiga ay aadka u liidatay, xiriir ayuu la sameeyay ninka Isbaanishka ahaa. sida kutubta taariikhdu dhigayso, ninka Isbaanishka ahaa ee muslimiinta ku baabiinayay Andalus, ninkan xabashiga ahaa ballan bay dhigteen in ay kulmaan oo ka wada hadlaan sidii ninkan xabashiga ah uu duulaan qaado u qabsan lahaa kabcada. boqorkan Isbaanishkuna inta uu duulo u qabsan lahaa isaguna Baytul Maqdis. kadib waxa la isdhaafsaday 2 danjire ama 2 safiir sida aad u garanaysaan. waxa lagu ballamay in la iskugu yimaadana la go'aansaday magaalada Napoli la yiraahdo ee ku taala wadanka Talyaaniga. markay taariikhda hijrigu ahayd 854kii Shabcaan oo ku beegan taariikhda miilaadiga 1450kii Sebtembar. labadani way kulmeen waxayna ballan iyo wacad ku galeen in ay muslimiinta duulaan ku qaadaan. oo boqorkan xabashiga ahaa
ee hogaaminayay Axmaarada iyo Tigreega wada socda oo koonfurta kaga soo duulo Islaamka qabsadana Kabcada kan Isbaanishkuna waqooyi kaga soo duulo Islaamka oo qabsado Baytul Maqdis waliba wuxuu la sii kulmay boqorka Xabashiga ahaa boobkii waqtigaa ka talinayay boqortooyadii Rooma oo ka sii barakaystay ama waa la sii barakeeyay waa sida iyagu aaminsan yihiin kuwa Ilaahay ka furtay labada nin ee kala diinta ahaa ee mid haysta diinta Kaatooliga midna haysta diinta Masiixiga sida ayay ku ballameen waxaad isweydiin kartaa oo kugu soo dhacaysa ma xidhiidh iyo cilaaqo ayaa ka dhaxeeya xuruuftii Saliibiyiinta iyo nimankan Axmaarada iyo Tigreega xidhiidh baa ka dhaxeeya aynu ku horeyno xuruuftii Saliibiyada ama xuruuftii nimankan Kiristanku ay ku soo qaadeen dhulka muslimiinta 3 meelood ayuu ka dhacay dagaalkaasi ay Kiristanku ku soo qaadeen muslimiinta 3 meelood meel muslimiinta waa lagaga adkaaday meelna way ku adkaadeen meelna ilaa maanta oo aynu joogno waa lagu dagaalamaya waxaan idinka raali gelinayaa daawadayaal waqtiga igu dheeraaday waanan wada dhammaystiri kari waayay qayb labaad baan u samayn Ilaahay ogolaanshihii waynu iska warhayn doonaa